dhowr bilood oo ay fasalladan marnaayeen hadda dib ayay u buuxaan waxaana ka soconaya waxbarashadii iskuulka Xamar Jajab oo ku yaala magaalada Muqdisho waxaa horey loogu xiray amar ka soo baxay dowladda oo lagula tacaalaya in lagu xakameeyo faafitaanka COVID-19 kaas oo si guud u taabanaya iskuulaadka iyo jaamacadaha dalka hadda oo dugsiyada waxbarashada dib loo furay haddana weli taxadar ayaa jira anigoo magacay Maxamed Cabdullaahi Maxamed iskuulka Saacid Xamar Jajab fasalka sideedaad ee corona kadib markaan soo laabanay iskuulka dib markaan nool furay taxaanka dib nool furay iskuulka waxaa noola keenay biyo nadaafadda ay ku dadaalnaa bareega inta galin ka hor inta wax cunin gacmaha ayaa dhaqnaa kadib ayaa bareegan iska galnaa musqulaha markaa soo baxnay gacmaha ayaa dhaqnaa magacaygu waa Farxiyo Cali Nuur waxaan dhigtaa class ee iskuulkayga magaciisuna waa Xamar Jajab corona kadib waxaan dib u sii wadnaa nadaafadii waxaan oo yaala biyo iyo shaambo si loo ilaaliyo fayadhowrka caafimaadka ardayda iyo macallimiinta loona xakameeyo xanuunka COVID-19 waxay maamulada dugsiyada waxbarashada Muqdisho soo kordhiyeen adeegyo horey aan uga jirin iskuulaadka ku yaala caasimadda agabkii ama materialkii loo baahnaa aan keenay waxaabihii jeermis dilaha ahaay oo faraha lagu dhaqanayay oo kale ilmaha sidoo kale aan siino wacyigelin iyo awareness badan sida in ay maxay ahaatay isku neefsan ama maxay ahaatay ay sameeyaan waxa la yiraahdo markuu ardaygu hindhisa oo kale gacantiisa ama tiish inuu isticmaalo oo sida uu maxay tahay yiraahdo arday kale direct oo san u gaarin Soomaaliya waxa uu COVID-19 ku dhacay in ka badan 3500 oo ruux ku dhawaad 100 qofna way u dhinteen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya hadda oo waxbarashada dib loo furay haddana weli dawladda Soomaaliya ma sheegin in cudurka dalka uu ka dhamaaday Cabdi Casiis Barrow qubanaha VOA Muqdisho